دكتور حسن شيخ علي ورسمه ومانتا خطبدii jimcaha ka galay masjidka Xaaji Cabdi Cawad Cali ee magaalada Burco ayaa waxa uu kaga hadlay 14 February oo dunida laga xuso maalinta jacaylka waxaanu Dr. Xasan faahfaahin ka bixiyay maalinta Valentine Day-ga sababta ay ku timi iyo waxyaabaha sababay in loo asteeyo maalintani bisha labaad sanadka miilaadiga February shalay bay ahayd 14keeda waxa ku beegan ciidda jacaylka ee adduunka ciidda Valentine la yiraahdo oo loogu magac daray nin gaar ah oo u dhintay jacaylka oo baadariya ayaa maalinta noocaas dil lagu xukumay dabayna iyadoo loo abaalgudayo kiristaanku u abaalgudayaan baa waxa loo sameeyaa 14ka bisha labaad ayaa waxa laga dhigtay ciid baa laga dhigtay waxay ahayd ciid gaar ku ah gaalada oo wax la isu hadiyadeeyo oo waxa weeye la muujiyo jacaylka sida ay leeyihiin macnaha uu leeyahay jacayl maalinta sanadkii maalin la muujinaya muxuu yahay dhaqankaasi dhaqan kiristaan buu ahaa ciidul qidiisi Valentine ayaa la yiraahdaa caalamkii muslimiinta markii loo awood sheegtay ee miidiyihii lagaga soo duulay ee dhaqankoodii lagu soo duulay ee loo awood sheegtay baa waxa weeye lagu soo faafiyay dhaqamada noocaas ah waxa kamid ah ciidaas kamid ah in badan baa laga hadlay wuxuu iska ahaa munaasabad yar oo kooban buu iska ahaa ubaxas baa la isu hadiyadeeyaa waxa weeye laakiin maanta qoliyaha sharka iyo shaytaannimada iyo xumaanta doonaya inay faafiyaan maalin walba siba lagu dhigaya ama qaab baa loo dhigaya دكتور حسن شيخ علي ورسمه oo sii wata hadalkiisa ayaa sidoo kale ka hadlay buug dhawaan lagu soo bandhigi lahaa magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer taasoo ay culimada gudida wanaag fariistu joojiyeen munaasabadii loogu tala galay buugaasi waa ogeydeen maalmo dhaweyd hoteelada Burco qaar kamid ah wax ka dhacay ka horna Hargeysa ka dhacay oo waxa weeye ciidda noocaas la doonayo in lagu muujiyo siday wax u socdeen iyo waxa loo socday iyo qaabkay wax u dhacayeen iyo fasaadka iyo munkarka ka dhacayay waa wax cid waliba ay arkaysa miidiyahana waa ka buuxda waxa weeye munaasabadaas oo ina tusaysa xaalku siduu isu bedelayo iyo sida la isku mashqiicinayo la isu baarayo oo maalin walba talaabo lagu eegayo la eegayo in laga falceliyo markii rag khayr Allah siiya hay'atul amr bil ma'ruf wanaag farista kamidi markay u galeen waxa weeye dagaal lagu qaaday iyadoo lala fayrtamayo waxa weeye miidiyaha la soo galiyay waxay u socdeen ay ahayd inay yiraahdaan waa munkarka la joojiyo waxa shicaar laga dhiganaya oo waxa weeye munaasabada lagu qabanaya oo ragii hoteelada lagu khaldaya oo bulshaweynta lagu khaldaya buug in la soo bandhigayo laakiin waa buug wax badan ku laran yahay buug waa buug jacayl ayaa lagu magacaabay hadiyad jacayl baa lagu magacaabay xilliga lagu soo beegay waad fahmaysaa waa bishii jacaylka adduunka baa lagu soo beegay bandhigiisa waxa lagu soo beegay maalmihii caalamku u dabaaldegay gaaladu ay jacaylka u dabaaldegaysay waxa taa lagu sii laray waxa la yiri lamaanayaashuna ha yimaadaan dhalinyaro badan oo jacayl ka dhaxeeyo iskuursan doonta oo haday iskuursan doonaan ha ka soo qayb galaan midhar xaaslayna waa la keenay ayaa soo galaya muusika iyo kaban bay ku soo galayaan jaas bay ku soo galayaan xijaabkii waa la dhigtay qaar baa timuhu qaawayihiin iyadoo saala isu lulayo oo boqolaan la yahay oo inaniba garabka isku hayaan bay waxa weeye soo galayaan gudaha waxa ka dhacaya waxa weeye jacayl baa la muujinaya dhunkasha amaama almala boqolaan hortood baa la isku dhunkanaya la isku dhegdhegaya kamaradina ay horta la caalamka laga daawanaya haday yihiin laba isqaba ficilka noocaasi ma banaana haddii ay yihiin laba aan isqabinna waxa weeye dambigoodu waa ka sii weyn yahay إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة
في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. ومحمد حسن ديرية محمد شوكر تلفزيون عالمي إريال تي في برعو.